gudoomiyaha gobolkaasi Sanaag Axmed Cabdi Muuse oo weheliyaan maamulka degmadaasi Ceelaf Weyn oo ugu horeeya maayirka degmadaasi Ceelaf Weyn xubno ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmadaasi Ceelaf Weyn xogayaha maamulka fulinta ee degmadaasi ayaa soo kormeeray dhammaanba goobaha shalay ka dhaceen mudaharaadyo wata khasaare kala duwan oo soo gaadhay qaar ka mid ah ciidamada iyo waliba dad shacab ah waxaana mas'uuliyiintani ujeedkoodu uu daaranaa xaaladda nabadgelyo ee degmadaasi Ceelaf Weyn halkay marayso iyagoona sheegay in xaaladda nabadgelyo degmadaasi ay hadda degan tahay ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmadaasi Ceelaf Weyn iyo maayirka degmadaasi Ceelaf Weyn Maxamed Aadan Digaale iyo hadday tahay tii shalay dhacday intaba waxa lagu jiraa xalkeedii iyo solutionkeedii baa lagu jiraa degmaduna waa taa wata la kala iibsanayo wata umadu soconayso wax allaale wax iska bedelay ma jiraan wixii dhacay shalay toona dhacayna waxa hadii alla ka dhigo iyada lafteeda umadu ma wada lahayn dambiga intii lahaydna insha Allah dabagalkeedii baa lagu jiraa wax ka qabashadeedana waynu fadhinaa laamaha amniga nuga fadhinaa saaka waxaan taaganahay toonkii Ceelaf Weyn santarkii dhacdada yeelay marxuumkii dhintay oo uu tacsiideynaa Ilaahay uu naxariisto oo isku ka baxayna samiriyo iimaan saadiq Allah ka siiyo dhacdada yeelay shalay ka dhacday degmada Ceelaf Weyn ahayd shoobara ahayd ayaa si khaldan loo turjumay oo sawirro khaldan la saaray oo calankii dabuurta ahaa madoobaaya buluuga ahaa lagu dul qabtay sawirro ayaa jiray waxa laale wax ka jira ma jirinin calanka sidii looga xoroobay ee ciidda loo geliyay cid laabta ku haysata iyo cid dusha ku sidata toonna ma jirto waanu ka xorownay waxa loo xoroobay calanka tawxiid kale ee Soomaaliland cid gacanta ku qaadi karta iyo cid dusha ku qaadi karta iyo cid meel saari karta toonna lagumana riyoodo lagumana hadaaqo waxa weeye propaganda la iibinayo degmada Ceelaf Weyn waxay ku suntan tahay Soomaaliland darnimada waa degmadii ugu horeysay ee iska xoreysa calanka dabuurta ah ee iska kor qaada ee ugu horeysay ee Soomaaliland bal la soo horgalo ee la xoreeyo uma cuntanto maanta in waxa lagu canjarafeeyo ama lagu sawiro been laga gudbiyo aad iyo aad baan uga xunnahay cidii waxa samaysayna ayaa shaqaastii samaysayna waxa dhacay shaqaqooyin yaryar oo laba casho iska daba dhacay oo ka dhacay degmada Ceelaf Weyn shaqaqooyinka Ilaahay ha u naxariisto inankii ku dhintay Ilaahay waxaynu u weydiinaynaa jannatul firdawsa inuu ka waraabiyo waxaynu kale oo ka xunnahay wixii dhacay ee shalay toole dhacay ay nagaga dhaawacmeen dadka maatada iyo ciidankii qaranka ee nabadgelyada u joogay degmada Ceelaf Weyn inay ilaaliyaan iyagana waxaanu Ilaahay uga baryaynaa inuu boogadhayo Ilaahay waxaanu uga baryaynaa inuu ciidanka inoogu soo celiyo shaqadoodii wanaagsaneed ee inoo hayay halkan Ceelaf Weyn maanta calankii Soomaaliya hawna uma qabto mana aha iyadoo ciidanku ay dhowrayeen shacabka oo runaantii geeridii dhacday darteed ay sababtay in la dhowro oo hadii alla leeyahay oo aan wax laga qaban bay sababtay tudaalihii dadka loo tulayay in calankii buluuga aana suuq lagu sawiro waxaan leeyahay halkan calan buluuga kama shaqeeyo waa Soomaaliland waa xuduntii Soomaaliland kaloo baaq nabadgelyo u diraya gobolka Sool oo saaka shaqaqooyin ka socdaan waxaan leeyahay hal la joojiyo xabadda waxaan leeyahay colaad inaan baa ku dhinta in ma dhasho waxaan leeyahay si degdeg ah loo joojiyo colaadda marxuumka dhintay bisha afarteedii Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu godka u nuuro waana u tacsiideynaa ehelkiisii iyo sida la sheegay carruurtiisiina samir iyo iimaan Ilaahay ka siiyo iyo aabihii tulkii kale xukuumaddu way u fadhiday wixii halkaa ka dhacay gacanteena ku hayso waa kidii warka ay ka soo saartay askartayadii qaranka ee saraakiisha lahayd ee askarta lahayd ee dhaawacantayna Ilaahay waxaan uga baryaynaa dhaawaca ka kiciyo iyaduna waxaa jirta gabadh lamaan oo carruur agoona haysata iyaduna dhaawacantay oo dhakhtarka Celigaabo taalla iyagana Ilaahay waxaan uga baryaynaa kuwaana waa inay yaro agoona iyo hooyadii Ilaahay kuwana u fuudayo nabadgelyada degmadana waa aragtaan waa taam dadka shalay calanka qaatay waa ka xunnahay calanka annaga caloosha naga xanuunta qof degmada Ceelaf Weyn oo ku dirsanaya ma jirto waxaan leenahay nabadgelyada ilaasho nabadgelyada waa noo caadi dadkan annaga ka mas'uula
wixii qaladaad ka galay dadku way caban karaan dawladooda waa la hadli karaan dawladooda u dulqaadanaysaa sharcigana waa la keeni doonaa ciddii hore ee waxa samaysay oo gacanta guddiga nabadgelyada ku haysay laakiin dadku waxaan leenahay ha dul qaateen labadii dhacdo ee isdaba joogay ee ka dhacay deegaanka Celaf Weyn ee uu markii hore marxuum ku dhintay Abokor ilaahay waxaan qoyskii uga baryaynaa inuu sameeyaan ka siiyo waxaan ka xunnahay dhacdadii labaad ee loo geystay ciidanka qaranka iyo maamulka gobolka ee nabadgelyada waxaan kaloo ka xunnahay wixii ka dhacay suuqa Celaf Weyn ee calankii la sitay calan Soomaaliya ay ma yaalo degmada Celaf Weyn maryaha shacabku sitay buluuga ah ay xaq kala rogeen dad dana kala gaar leh in baa ka faa'iideystay oo maray xidig yar ku dhiciyay calan Soomaaliya oo yaala degmada Celaf Weyn ma jirto dadka Celaf Weyn waxaan leeyahay nabadgelyada ilaaliya maanta la inaga yeeli maayo inaynu reer Celaf Weyn ahaan qarankii oo meel kale ku jeeda inagu inaynu isqabqabsano waan ugu mahadnaqayaa shacabka degmada Celaf Weyn inay iyagu dhexdooda shaqooyinkii shalay dhacay ay iyagu kala nabad galeen magaalada Celaf Weyn halkaan taaganahay waa siroogii magaalada waxaana ku sawiran astaantii qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland horta marka koobaad waxaanu tacsiideynaa qoyskii ka baxay marxuumkii bisha 4teedii ku dhintay deegaanka mid degmada Celaf Weyn ilaahay waxaanu ka baryayaa inuu naxariistii janno uu ka waraabiyo sababtii ku dhintay iyo asbaabtii ku dhintayna baaristeedii horena waa loogu jiray oo gacanta lagu hayay haddee faraha lagama qaadina waa lagu hayaa walow ay jiraan shaqooyin soo dhaxgalay baaristii oo iyadoo baaristiiba gacanta lagu hayo oo maamulka iyaga degmada iyo maamulka gobolka iyo waayeelka degmada Celaf Weyn iyo dhammaan guddida nabadgelyada heer gobol ay gacanta ku hayaan ayaa dad wax ma garataa ay shalay tolo sameeyeen dhacdadii foosha xumayd waxaan uga raali gelinaynaa dhammaan dadweynaha reer Celaf Weyn sumcad darrada shalay tolo ay ku sameeyeen shakhsiyaadka kooban ay ku sameeyeen waanu ka raali gelinaynaa guud ahaan reer Soomaaliland waxaan leenahay arrinta xaaliya booliis baan idinka siinay waxaanu cadeynaynaa xaaladda Celaf Weyn laga sheegay ee laga buunbuurinaya inaanay haba yaraatay wax ka jira aanay jirin baryahana rabshada ugu badan iyo dhibaatada ugu badan wuxuu dadka reer Soomaaliland ka haystaa social media waxaad moodaan Soomaaliland lagu hayo wax la yiraahdo keyboard war dagaal xagga saxaafadda oo wixii yaraa masaladii yaraa meel ka dhacaba in photoshop fara badan lagu samaynayo way jirtay laakiin sida ay u sheegayeen saxaafaddu uma buurnayn waxaan leeyahay arrintan baalisteedii gacanta lagu hayaa waxaynu tacsi u diraynaa marxuumkii duraas ku geeriyooday deegaanka Qaloocato oo hoos yimaada degmada Celaf Weyn eheladiisii waxaan leeyahay ilaahay dhammaantiisa bariyeegan ha idinka siiyo isagana ilaahay qabriga ha u nuuro janno firdawsana ha geeyo waxaanu sidoo kale aanu ilaahay uga baryaynaa inuu ilaahay u boogadhayo ciidankii qaranka ee shalay ku waxyeeloobay rabshadihii ka dhacay magaalada gudaheeda oo dhammaan 8 askari iyo 2 qof oo shacab ah gabadh iyo ina yar ay dhashay ilaahay inuu iyagana u boogadhayo oo taliyihii guutada 54aad uu ka mid yahay taliye Madoobe Salebaan Madoobe ilaahay ayaan uga baryaynaa in iyagana ilaahay u boogadhayo degmada Celaf Weyn in ay tahay degmo qadiimiya oo la faheeda iyo waxa weeyaan abuurkeeduba uu ku jiro inay dad Soomaaliland dirisay yihiin ayna tahay degmadii ugu horeysay calanka Soomaaliland laga taago sidoo kalena iska horeysay tiimkii Maxamed Siyaad Barre laguma riyoodo lagumana seexdo calanka madow mana jiro waa arrin propaganda oo saxaafadda lagu fidiyay wax jirana maaha wax naga suura gala haddii shacabka reer Celaf Weyn yihiin wax ka suura galana maaha arrintaasi waa arrin propaganda 2 qof ayaa sitay oo la soo khalday oo dirciye madmadow xiddi ku soo sameeyay kuwaasna talaabo sharciga waafaqsan baa laga qaadi doonaa insha Allah iyaga ciidii ka dambeysayba waxaanu kaloo aanu sheegaynaa in degmadu ay nabadgelyo tahay oo aan wax khalkhal nabadgelyo darro ah aanu saacada ka jirinin oo degmadu ay xawaal tahay nabadgelyo tahay ayaanu u sheegaynaa shacabka reer Soomaaliland waxaanu kaloo aanu baaq u diraynaa shacab weynaha reer Celaf Weyn ee degmada Celaf Weyn degan dhamaantood waxaan leenahay dalku wuxuu ku jiraa culays baa saaran waa ogtiin laasaanood waxa ka jira innaga wax leynooga baahan yahay haddii reer Celaf Weyn isgarab istaag aynu qarankeena garab istaagno ayaa leynooga baahan yahay
taasna insha Allah bismillaahi kariim waxaan u direynaa baaqaha reer Celafweyn arrinta propaganda ee inaga fidiyeyna shacab ahaan iyo dawlad ahaan iyo maamul ahaanba inaan u beenino ayaa laynaga rabaa runtii waxa weeyaan waxaanu kaloo sheegaynaa in ciddii waxa weeyaan geysatayna baadhis ku socoto falalka geysatay nimanka rabshad walayaasha ah shalay soo weeraray ciidanka qarankana cid kula socotay iyo cid xog ka haysay ma jirto inama reer miyo gacsayaal bay ahaayeen cid ku socotay iyo mabda ay ku socdeen midna ma jiro walayaashu waa nala joogeen wax allaaliyo waxay ka ogaayeen arrinta ma jirin annagu maamul ahaan waxba saacada kama aanan ogeyn weerarkan ugu soo socday taasna waxa weeyaan waxay ahaayeen wax dad kooban oo fara ku tirisa oo reer miyo oo geerooda ay fuliyeen bay laakiinse waxa weeyaan cid ugu tilmaami karo inay soo abaabushay ma yahayn ugu dambeynna waxaa isaguna hadalka qaatay barasaabka gobolkaasi Sanaag Axmed Cabdi Muuse oo ka xog waramay xaaladda nabadgelyo ee degmadaasi Celafweyn waxaana hadaladiisii ka mid ah Celafweyn nabadgelyo tahay wax dhibaato aanay ka jirin cid dhibaataysa ama fadqalanaysa ama rabshad dhexgelisana aan laga oqolay taariikh dheer bay degmadani halgankii ku leedahay dalka lagu xoreeyay awoowayaal iyo aabayaal badan baa u mootan oo u dhintay xabaalo wareedyada ugu ballaaran ee gobolka Sanaag laga diiwaan galiyay baa ku yaala dagaaladii ugu qadhaadhaa ee halganka halkan laga galay maantana halgankii bay diyaar u yihiin haddii war xumi baxay oo war xumi galay social media iyo maxaan ku raahdaa laamaha kala duwan ee mediation-ka loo isticmaalo waxa wax ka jiraan ma jiraan magaalada Celafweyn waa nabadgelyo reer iyo group iyo cid gaara oo arrimaha ku suntanina ma jiraan waa dad kooban oo mid iyo laba iyo saddex tusaale ahaan aan u garanayn macna ahaan calanka haysitaan laftooda cawaaqib xumo iyo ciqaab bay ka mudan doonaan haddii Ilaahay idmo sharcigaana la horkeeni doonaa haddii Ilaahay idmo saha dhacay ciidankii qaranka 8 ruux oo kamida oo ku jiro taliyay guutada 45aad Cornel Salabaan baa dhaawac ku soo gaaray Ilaahay waxaan uga baryeynaa inuu caafimaad taam siiyo Ilaahay waxaan uga baryeynaa inaan dhacdada iyo wax la mid yahay inagu soo noqon dib dambana aanay inoogu iman waxaan u sheegaynaa bulshooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland arrintaana inaanu hawlgalkeedii ku jirno ashxaastii arrinta ku lug lahaydna aanu qabqabashadeedii wadno insha Allah bismillaahi kariim soona bandhigi doona haddii Allah idmo aad baan ugu mahadnaqaynaa maamulka ka degmada iyo maxaan ku raahdaa guud ahaan xildhibaanada golaha deegaanka sidoo kale waxaan mahad gaar ah siinayna madax dhaqameedka kala duwan bulshada gobolka Sanaag guud ahaan gaar ahaan degmada Celafweyn oo iyaguna si ballaaran oo kala duwan uga hadli doona haddii Ilaahay idmo waxay insha Allah muujin doonaan dareenkooda iyo sida ay uga xun yihiin arrinta dhacday iyo calanka la soo qaatay sidoo kale waxaanu jecelahay inaan halkan uga faa'iideysto inaan ku cambaarayno falkii xumaa ee argagixisnimada lahaa ee waxshinimada lahaa ee saaka lagu weeraray fadhiisimaha ciidanka qaranka qaybo kamida iyo hoyga ay deganayeen maxaan ku raahdaa madaxda kala duwan ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ay argagixisada ku dhuumaalaysanaysaa maxaan ku raahdaa bulshooyinka reer Soomaaliland ay ku qaadeen degmada Laascaanood ma aha reer bulshada Soomaaliland waa reero badan oo isku duuban oo isu tagay mabda iyo qiyamna wada leh laakiin falka argagixisadu dabada ka soo riixayso waxaanu ku kalsoonahay awoodda ciidanka qaranka inay ku kalsoon inay difaacayaan inay ku filan yihiin taasaanu kalsooni ku qabnaa waxaanuna insha Allah bismillaahi kariim halkan uga diraynaa dhambaal taageero iyo hambalyaha ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland aanu ku garab taaganahay kaasoo aan laba ahayn kaasoo aan ka tashi lahayn kaasoo kan mabda ee Soomaaliland aan ku nahay uu yahay